الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mahad ilaahay ayaamahan waxaan ku sugnaa baydhabo oo waxaan u joognay doorashooyinkii oo la cayimay oo dadbanaa kursiga 103 ayaan u tartamayna tartankeeda inaan ka qayb galno ayaan u nimid hase yeeshee xoogaa caqabada iyo culays yar ayaa naga hor yimaadeen markii aan guud ahaan uga hadlano maxaa yidhaahdaa arrimaha meeshaan ka socdo ee baydhabo anigu shakhsiyan qiyaasta aan qiyaasi waxay tahay meeshaan ma fidsana gogol nin gob ah oo wax ka soo doontay oday meeshaan ma taalo waxaa socda magaciisii arrimo oo takriifal caadi ah oo aan wax daafur ah yani qawaaniinta noo degsan oo dastuurka soo u dhigaya waxaa weeye in la qabto doorasho hufan xor iyo xalaal ah in la qabto ayaa ku qorneed taasa laga soo minguuriyey oo shuruucda loo ansixiyey doorashada dadbana kaasa laga soo minguuriyey in la qabto doorasho xalaal ah hufan loo baahnaa hadda wax meeshaan hufan iyo xalaal ah iskaba dhaafay waxaa weye si maarata oo daaha furan waxaa loo samaynayaa gabood falo caadi ah oo lagu talax tegaya xuquuqda oo yani muwaadinka xaqiisa siyaasiga ah oo in la doorto inuu wax doorto waa laga hor yimid xaqiisa siyaasiga ah inuu wax doorto waa laga hor yimid wax meeshaan nidaam dowladeed la yidhaahdo oo yaalla ama xaq oo wax lagu qiiminaya uma jeedo raxmad allah siiyo soomaaliya allah u raxmado dhammaan soomaaliya xadiisadan lagu socdo waxaan ka baqayaa dowladnimada inay intii yareedan soo kasbanay inay faraha ka baxdo ayaa suurtagal ah saa daraaddeed waxaan allah subxaana watacaala ka rajaynayaa in towfiiq uuna waafajiyo inta harsanna martaa ilaahay uuna na waafajiyo laakiin meesha tan uma jeedo sidii lagu talagalay warqadaha ku qoran oo la rabo in loo fuliyo doorashooyinka uma jeedo wax dhan waxay ku jiraan kontarool aada zaa'id u ah oo gacan qof ku jirta weeyaan qof aan raalli laga ahaynna meeshaasi ma gudbaayo maba noqonayo musharax sida hadda ila tahay anigu hadda kursigii waa ka soo tegay baydhabo haddaan ka duulaya haddii aan la yidhaahdo mar dhow waxaa wadahadal u socda kursiga aniga iska malihi anigu waxaan ahay musharax oo kursigaas 103 u tartamayaan ahaa waxaa hadda wadahadal u socda oo wixii ka soo baxa aan sugaynaa go-aankooda madaxtooyada ee gobolka koonfur galbeed iyo odayaashii iska lahaa beesha odayaasheeda oo iska lahaa kursiga 103 inay ka xaajoodaan go-aanna ka gaaraan ayaan ka sugaynaa wixii ka soo baxa ayaan sugaynaa haddii aan yidhahdo laakiin aniga ilaa hadda rasmi ahaan waxaan ahay musharax rasmi ah oo kursigaas 103 u sharaxan sugayana in la qabto doorasho xalaal ah xor ah oo daahfuran in la qabto ayaan diyaar u ahay ilaa taas laga gaarayana sidaasaa usoo taagnahay xaqaasi waxaa kursigaasi bixin kara ama diidi kara waa beesha iska leh sida uu shuruud ay ku qoran tahay gacantoodii gacan ilaahayna kama badna iyagaana ka warsugaya ahlan wasahlan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu